nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba wakhti walba oo aad adigu daawada jeceshahay magacaygu waa Shinigestir waxaan muuqaalkan kugula wadaagayaa types of three-dimensional figures oo sidoo kale loo yaqaano solid figures oo luqadeena hooyo ku noqonaysa noocyada shaxanada saddex-dimaale oo sidoo kale loo yaqaano shaxanada adkaha. Solids are three-dimensional figures that take space. Adkayaashu waa shaxano saddex-dimaaleyaal ah oo leh mug ay wax ku qaadaan. Adkayaasha waa kuwa lagu cabiro mugga sidoo kale loo yaqaano volume-ka. Marka waxaan baranaynaa caawa noocyada ay u kala baxaan shaxanada lagu cabiro mugga ama volume-ka. Daawade shaxanada adkayaasha ama saddex-dimaaleyaasha waxay u qaybsamaan laba qaab oo kala ah ama laba nooc oo kala ah. Kow, polyhedron oo luqada hooyo lagu yiraahdo salxaale, iyo labo, non-polyhedron oo luqada hooyo lagu yiraahdo salxaale ma ahe. Waxaan marka caawa videogan aan falanqeynaynaa oo aan ku baranaynaa nooca koobaad ee loo yaqaano polyhedron. Nooca labaadna waxaan ku baran doonaa videogan ka xiga. Nooca koobaad ee loo yaqaano polyhedron saan soo sheegay luqada hooyo waxaa lagu yiraahdaa salxaale. Salxaale ama polyhedron waa adkayaasha waxaa sidoo kale la yiraahdaa saddex-dimaaleyaal luqada af Soomaaliga. luqada Ingiriiskana waxaa la yiraahdaa solids ama 3D figures. Salxaale ama polyhedron waa adkayaal ay wejiyadooda iyo salkooduba ay yihiin geesoole. Geesooleyaashu waa shaxanada loo yaqaano kow, laba jibaarane, leydi, saddex jibaarane, shan geesle, lix geesle, toddoba geesle. waxaan soo baranay waqti ka horeeyay oo haddii aad raadisid waxaad ka heli kartaa channelkeena. daawade shaxanka koowaad markaa waxaa loo yaqaanaa cube. waxaa luqada hooyo lagu yiraahdaa saddex jibaarane. Saddex jibaarane waa shaxanka halkan nooga muuqda. wuxuu ka kooban yahay 6 faces, 6 weji, iyo 12 edges, iyo 12 gees, iyo 8 vertices, iyo 8 gees oo sidoo kale loo yaqaano fiinta. waxaan isla fahmaynaa marka koobaad 6 facesku waa kuwe. Facesku waxa weeyaan waa kuwan soo fiirinay. kan ayaa la yiraahdaa face. face kaloo ka soo horjeeda ayaa halka ku yaala laakiin sawirkan inuu ma soo saarayo. haddii aad aragtid boxka waxaad arkaysaa facekan inuu ka soo horjeedo face kale waa labo. facekanna face kale oo hadduu ku fadhiyo ayaa ka soo horjeeda markii lagu daro waa 4. facekanna face kale ayaa ka soo horjeeda oo waa 6. marka wuxuu leeyahay cube 6 faces, 6 weji. wuxuu kaloo leeyahay 12 edges oo loo yaqaano 12 gees. edgesku daawade waxa weeyaan kuwan ayaa la yiraahdaa edgeska dimension ayaa la yiraahdaa edges. si fiican aan u muujiyay kuwaas ayaa la yiraahdaa edges luqada Ingiriiska. af Soomaalina waxaan dhahnaa gees. wuxuu leeyahay marka shaxanka saddex jibaarane 12 gees ama 12 edges. wuxuu kaloo leeyahay 8 vertices, 8 gees oo loo yaqaano sidoo kale fiinta. fiinta waxa weeyaan waa meesha ay ku kulmayaan edgesyada. halkaas ayaa la yiraahdaa luqada af Soomaaliga fiinta ama waxaa la dhihi karaa gees. luqada af Soomaaligu waa bad marka kuwaas ayaa la yiraahdaa gees. waxaan rajeynayaa faces, edges iyo vertices waxa ay yihiin inaan isla fahnay. waxaan u gudagelaynaa shaxankeena labaad kaasoo luqada af Ingiriiska lagu yiraahdo cubed oo sidoo kale loo yiraahdo rectangular prism. waxaa luqada hooyo lagu yiraahdaa sadjibake. sadjibake wuxuu leeyahay 6 faces, 6 weji, 12 edges, iyo 12 gees, iyo 8
vertices iyo 8 gees waxaan rajeynayaa faces edges iyo vertices inay waxay yihiin aan isla fahnay laakiin hal mar oo kale ayaan ku celinayaa facesku waxa weeyaan wejiyadan wuxuu leeyahay baan dhahnay 6 weji labo halkan ah 1 2 3 saddexdan kan waxaa ka soo horjeeda mid kale laakiin sawirka inuu muujinayo kanna waxaa ka soo horjeeda mid kale oo halka ku yaala laakiin sawirka inuu muujinayo kan korana waxaa ka soo horjeeda mid kale oo ku fadhiyo marka wuxuu ka kooban yahay 6 weji waxaan dhahnay oo kale wuxuu leeyahay 12 edges ka saan soo sheegnay waxa weeyaan limation ayaa la yiraahdaa edges wuxuu leeyahay 12 line ama 12 edges ama 12 gees luqadda af Soomaaliga wuxuu kaloo leeyahay baan dhahnay 8 vertices kuwaas ayaa la yiraahdaa vertex tan waxaa la dhihi waa hal vertex baa dhahaysa luqadda Ingiriiska laakiin marka ay jamac yihiin waxaad dhahaysaa vertices wuxuu leeyahay 8 vertices 4 halkan ah iyo 4 halkaas ah marka la isku daro waxa weeyaan waa 8 vertices shaxankan waxaa la yiraahdaa luqadda af Soomaaliga sajibak shaxankan waxaa la yiraahdaa 3 jibaarane marka labadan shaxan waa laba shaxan oo special ah shaxankan dabiisa wuxuu ka kooban yahay uu ka samaysan yahay 6 weji oo ah 2 jibaarane wejigan waa 2 jibaarane wejigana waa 2 jibaarane wejigaasna waa 2 jibaarane wejiga kale ka soo horjeedana waa 2 jibaarane shaxankanna ee loo yaqaano rectangular prism ama sajibake isna wuxuu ka kooban yahay 6 weji oo ah lady 6 weji oo ah lady intaas inaad fahansan tahay waa laga maarmaan waxaan u guda gelaynaa markaa daawade shaxankeena saddexaad waxaa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdaa square prism luqadda hooyana waxaa lagu yiraahdaa 2 jibaarane prism 2 jibaarane prism wuxuu ka kooban yahay 6 faces 6 weji 12 edges 12 edges 12 gees iyo 8 vertices iyo 8 gees ama fiinta uma baahni hadda inaan sii sharaxno 6 faces iyo 12 edges iyo 8 vertices waxay yihiin laakiin hadda waxaan rabaa inaan isdul istaago shaxankan 2 jibaarane prismka 2 jibaarane prism wuxuu u eg yahay shaxanka labaad ee loo yaqaano sajibake luqadeena hooyo laakiin hal wax ayay ku kala duwan yihiin sajibake saan soo sheegay wuxuu gabigiisa ka kooban yahay ama uu ka samaysan yahay wejiyadiisu lady laakiin 2 jibaarane prism wuxuu ka kooban yahay 6 weji oo 2 ka mid ah ay yihiin wejiyadan hore ay yihiin 2 jibaarane wejigaas iyo wejigan waa beeska uu ku fadhiisto labadan weji waxaa la yiraahdaa waa 2 weji oo 2 jibaarane laakiin afarta kale waxay ka samaysan yihiin lady sidaa darteed labadan shaxan waa 2 shaxan oo kala duwan kan waxaad dhahaysaa 2 jibaarane prism kan gabiisaba ladyga ka wada samaysan yahana waxaad dhahaysaa sajibake luqadda Ingiriiskana waxaad dhihi kartaa cubed ama waxaad dhihi kartaa rectangular prism waxaan rajeynayaa hadda labadan shaxan inay ku kala baxsan yihiin waxa ay yihiin waxaan u guda gelaynaa shaxankeena afraad kaasoo la yiraahdo triangular prism waxaa luqadda hooyo lagu yiraahdaa saddexagal prism waa shaxanka halkan nooga muuqda wuxuu leeyahay 5 faces 5 weji iyo 9 edges iyo 9 gees iyo 6 vertices iyo 6 gees ama 6 fiinta 5 faces kiisu 2 ka mid ah daawade waxa weeyaan saddexagal 2 ka mid ah waa saddexagal kan kowde iyo kaa ka soo horjeeda labadaas waa saddexagal 3 ka mid ahna waa lady kan kow kanna 2 iyo kan weyn halkan naga soo fiirinay saddexdaas wejina waxa weeyaan lady marka 2 weji oo wuxuu leeyahay saddexagal ah iyo 3 weji oo lady ah marka shaxanka noocan ah waxaad dhahaysaa luqadda Ingiriiska triangular prism
luqadda hooyana waxaad dhahaysaa saddexagal prism. waxaan u guda gelaynaa shaxankeena shanaad kaasoo loo yaqaano hexagonal prism. luqadda hooyana waxaa lagu yidhahdaa lixgeesle prism. lixgeesle prism wuxuu leeyahay 8 faces, 8 weji iyo 18 edges iyo 18 gees iyo 12 vertices iyo 12 gees. 8diisa weji ama 8 facesku waxay ka kooban yihiin 2 weji oo ah 6 geesle. shaxankii 6 geeslaha ahaa ayaad soo xasuusanaysaa wejigan koobaad iyo wejiga ka soo horjeeda. kaa ka soo horjeeda waa 2 shaxan oo 6 geesle ah iyo 6 weji oo kale oo ka samaysan lady. markaasa waxaad dhihi 6 geesle prism. waxaan rajaynayaa shaxankanna inaan isla fahnay magaciisa iyo waxaa loogu magac daray. waxaad dhihi markaa 6 geesle prism. waxaan u guda gelaynaa groupka loo yaqaano pyramid ama af Soomaali lagu yidhaahdo gumbur. gumburka waxaa loogu magac daraa qaabka salkiisa. waxaad fiirini salkiisa kadib baad ugu magac dari salkiisa. waxaad dhihi tusaale ahaan marka shaxanka 6aad waxaad dhihi square pyramid ama gumbur laba jibaarane. gumbur laba jibaarane waa shaxanka halkan nooga muuqda. salkiisa markaa wuxuu ka samaysan yahay daawada haddaad salkiisa u fiirsatid wuxuu ka samaysan yahay laba jibaarane. salkiisaad fiirinaysaa waxaad dhihi waa laba jibaarane salkiisa markaasaad ugu magac dari salkiisa. waxaad dhihi markaa gumbur laba jibaarane square pyramid. markaa gumbur laba jibaarane wuxuu leeyahay 5 faces, 5 weji iyo 8 edges iyo 8 gees iyo 5 vertices iyo 5 gees oo loo yaqaano sidoo kale fiinta. waxaan u guda gelaynaa shaxankeena 7aad. shaxankeena 7aad waxaa la yidhahdaa rectangular pyramid oo luqadda hooye lagu yidhaahdo gumbur lady. saan soo sheegay gumburka ama pyramidka waxaa loo fiiriyaa salkiisa. hadda salkan waa lady marka waxaad ugu magac dari salkiisa. waxaad dhihi markaa gumbur lady. gumbur lady sidoo kale wuxuu leeyahay 5 faces, 5 weji iyo 8 edges iyo 8 gees iyo 5 vertices iyo 5 gees ama fiinta. waxaan u guda gelaynaa shaxankeena 8aad kaasoo la yidhaahdo triangular pyramid. triangular pyramid waxaa luqadda hooye lagu yidhahda sidoo kale gumbur saddexagal. gumbur saddexagal waa ka halkan nooga muuqda. saan soo sheegay gumburka waxaa loogu magac daraa salkiisa. hadda gumburkan halkan nooga muuqda salkiisu wuxuu ka samaysan yahay saddexagal. sidaa darteed ayaa waxaad dhihi gumburkan waa gumbur saddexagal triangular pyramid. gumbur saddexagal wuxuu leeyahay 4 faces raalli ahaada 4 weji 9 iyo 6 edges iyo 6 gees iyo 4 vertices iyo 4 gees ama 4 fiinta. shaxankeena ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa hexagonal pyramid gumbur 6 gees leh. saan soo sheegay aan ku celiyey marar badan gumburka waxaa loogu magac daraa salkiisa. gumburkan salkiisa aan fiirinaynaa salkiisu waa 6 geesle. 6 geesle weeyaan. sidaa darteed waxaad dhihi gumburkan gumbur 6 geesle. gumbur 6 geesle markaa wuxuu leeyahay 7 faces, 7 weji iyo 12 edges iyo 12 gees iyo 7 vertices 7 gees ama 7 loo yaqaan fiinta. daawade shaxanadani waxaa loo yaqaanaa luqadda Englishka 3D